munaasabadani qalin jabinta ay ku qalin jabinayeen ardayda wax ka dhigata American School ayaa waxay maanta ka dhacday magaalada Hargeysa waxaana madashaasi ka soo qayb galay marti sharaf aad u tiro badan maamulka macallimiin waalidiin iyo boqolaal ka mid ah ardaydii halkaasi ku qalin jabinayay ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha dugsiga American School Mahad Maxamed Caabi kaasi oo ka waramay taariikhda uu soo maray dugsigan American School ardaydana kula dardaarmay inay halkaasi aqoontooda ay ka sii wataan ilaa inta ay ka gaarayaan heer jaamacadeed. iskuulkani waxa uu ka kooban yahay qaybta waxbarashada aasaasiga ah dugsiga hoose dhexe iyo qaybta KG-da ee barbaarinta oo gelinka hore ah waxaanu ka kooban yahay galaaska koowaad ilaa galaaska 8aad gelinka dambena waxa uu bixiyaa iskuulkani waxbarashada dadka waaweyn oo loo yaqaano adult education taasi oo iyaduna ka kooban luqadda Englishka iyo luqadda Carabiga iyo qaybaha kala duwan ee kombiyuutarka iyo qaybta xisaabta oo dugsiga hoose dhexe ah sidaa daraadeed qaybta maanta qalin jabinaysa waxa weeyaan qaybtii gelinka dambe oo adult education loo yaqaano ama waxbarashada dadka waaweyn waxaana ka qalin jabinaya 4 dufcadood oo kala duwan oo kala ah luqadda Englishka luqadda Carabiga xisaabta iyo qaybaha kala duwan ee kombiyuutarka runtii waxbarashadu waxa weeyaan furaha nolosha aadamaha waxaana weeyaan horumarka wadan horumar uu ku gaari karo kuna hiigsan karo himilooyinkiisa mustaqbalka ee wanaagsan waxa uu qofku bilaaadankii ku horumarin karaa naftiisa waa aqoonta uu barto hadba heerka ay gaarsiisan tahay sidaa daraadeed kelmadaydu waxa weeyaan maanta dadaala taajir Cabbaasna uu gaadhaabay Soomaalidu tiraahdaa qofkii aqoonina waa aqoon la'aanina waa iftiin la'aan waxaan idinku boorinayaa dhammaantiin inaad aqoonta ku dadaashaan maanta jaranjartii koowaad ayaad soo korteen aqoontii intaasi kumay dhammaanin waxbarashadiinu way sii soconaysaa hadda waxaad qaadateen barasho oo aad ka qalin jabiseen luqadaha Englishka Carabiga iyo xisaabta dugsiga hoose dhexe iyo qaybaha kala duwan ee kombiyuutarka laakiin qaybo ka sii sareeya ayaa idin harsan maanta waxaad haysataan certificate inaad gaadhaan diploma aad gaadhaan degree kadibna aad diyaarisaan masterate kadibna aad sii diyaarisaan ilaa shahaadooyinka kale ee ka sii sareeya ayaan idinku boorinayaa dhammaantiin ardayda wax ka barata macadka American dhankooda ayaguna waxaa halkaasi ka hadlay macallimiinta wax soo barayay ardaydani kuwaasi oo ayaguna dhankooda la dardaarmay ardaydaasi iyo hadday noqoto dhinaca saddexgalka bulshadaba aqoontu waxaan leeyahay furaheedii ayaad maanta barateen hase yeeshee waxaa laydinka baahan yahay inaad dadaalka halkaa ka sii wadaan oo aad ka gaadhaan ilaa iyo markaasi inta aad ka gaadhaysaan himiladiina aad hiigsanaysaan ee markaasi dhinac kasta oo aad markaasi aad jeceshihiin maadaama tihiin ubixii u soo kacayay iyo mustaqbalkii dalkan iyo dadkiisaba oo waxaa laga yaabaa ardaydaasi inaad fakalyo fara badan ay hiigsanayaan waxaan leeyahay noqda markaa insha allahu kuwii ka mida dhaliya hiigsigiinaasi aad maanta furihii ugu horreeyey aad markaasi qaadateen runtii waxa naga go'an in aanu ardayda si fiican wax u barno intii karaankayaga ah Allah subhanahu wa ta'ala nagu ogyahay waxa kaliya ee mar walba aan ardayda kula taliya waxa weeyaan waxa runtii iman doonta maalin aad ka faa'iidi doonto cilmiga aad baratay ama aad ugu faa'iideyn doonto dalkaaga iyo dadkaaga isla markaana aad ugu faa'iideyn doonto dhammaan ummadda muslimiinta oo dhan marka arday walba waxa loo baahan inuu si hagar la'aan wax u barto uu guntiga dhiisha iskaga dhigo dardaaranka macallimiinta waa inta waxa ayaguna sidoo kale halkaasi ka hadlay waalidiinta ay ardaydoodu qalin jabinaysa maanta kuwaas oo iskuulka ku ammaanay siduu markaste u soo saaro arday tayo leh runtii farxad weyn bay tahay inaan ka soo qayb galo madashan lagu qalin jabinayo ardayda kala duwan qaarna xisaabaadka qalin jabinaya qaar Ingiriisiga qaar Carabiga
farxad weyn bay tahay waana hambalyeynaya waxaan leeyahay waxbarashada halkaa ka sii wada ha ka caajisina waxa weeye idinku fursad baad hesheen annaga iyo macallimiintiina waqtigeygii waxaan ku fariisan jiray daasado iyo iskuulkoo dhan kala qaawo marka idinku ugu nimaadno xafladan qiimaha badan leh ee American School lagaga qalin jabinayo marka hore halkan waxaan ka salaabayaa macallimiinta ardayda waalidiinta waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh furahaantii waxbarashadu waxay leedahay qiimo dheer bay leedahay waxa garanaya maanta qofka aan waxba qorayn iyo ka wax qoraya ka aan waxba qorayn baa maanta qaranaya qiimahay leedahay waalidiinta waxaan ku dhiirigelinayaa ardayda inay ku dadaalaan mar walba keenaan ay daba galaan la socdaan hal inuu iskuulka tagiyeyn kale waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin sida fiican aad wax u barateen aad uga qalin jabiseen iskuul America annaguna haddaan waalidiintaanahay waxaan ku dadaalanaa inaanu idinla soconno idin dhiirigelino waalidiintana waxaan leeyahay ardayda ha ka daalina dabagala u dadaala hore u kiciya u shaqeeya waxaan leeyahay macallimiintana waad mahadsantihiin waqtiga wanaagsan ugu dambeyntii waxaa halkaasi shahaadooyin lagu guddoonsiiyey ardaydii kaalmaha hore ka galay iskuulka waa maxamed xuseen ibraahim zamni news TV magaalada Hargeysa.